hay-adda horumarinta nabadda Soomaaliyeed waxay ummadda Soomaaliyeed la wadaagaysaa farxadda kowda Luulyo, taas oo ku beegan maalintii ay xornimada qaateen gobolladii koonfureed ee Talyaanigu gumaysan jiray, sidoo kaleetana ku beegan isla maalintii ay midoobeen labadii gobol ee koonfur iyo waqooyi ee ka kala xoroobay Ingiriiska iyo Talyaaniga. hay-adda horumarinta nabadda Soomaaliyeed waxay mahad ballaaran u jeedinaysaa sidoo kaleetana u ducaynaysaa cid kasta oo ka qayb qaadatay xornimadaas lagu gaaray midnimadii kowda Luulyo. mahadcelinta kadib, bahda horumarinta nabadda Soomaaliyeed waxay xasuusinayaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed muhiimadda ay leedahay midnimadu. waalidiintii iyo dadkii wanaagsanaa ee midnimada iyo xornimada ka shaqeeyay waxa ay nooga duwanaayeen waxay ahayd hanka ay iyagu lahaayeen. hanka weyni mar walba wuxuu suuro geliyaa in waxa aad adigu haysatid ay kula yaraadaan, laakiin marka hankaadu uu soo yaraado mar walba waxaa kula badnaanaya waxa aad haysatid. tusaale haddii aan taas sii jilcino, dunida waxaa jira dalal aad u waaweyn, population ahaanna aad u tiro badan. tusaale ahaan dalka India oo baaxadiisu ay la eg tahay ilaa 3 milyan plus kilometer square ay tahay. China oo iyaduna 9 milyan plus kilometer square ah. sidoo kale Mareykanka oo 9 milyan kilometer square ah oo plus la sii jiro waliba ayaa waxay raadinayaan midnimada goboladaas iyo isku hayntooda. ujeedada ay kale yihiin waxa weeye in ay awoodda iyo midnimadooda uga faa'iideystaan saameynta ay dunida ku leeyihiin. bulshada marka hanka intaas la eg leh ka gudubtay ayaga dhexdooda waxa yaala u gudubtay in midnimadooda ay uga faa'iideystaan dunida saameynta ay leedahay. waxaan dareemaynaa midnimadu faa'iidada ay u keentay. waxaan taas rabnaa marka inaan ku fiirino waalidiintii midnimada iyo xorriyadda keenay ee Soomaaliyeed hankoodu nuuca u ahaa. waxaad ka dheehan kartaa hanka ay lahaayeen abwaaniintii iyo dadkii la shaqaynaya maalintaas. tusaale ahaan xorriyaddii kadib waxaa jiray in gobollo 5 ah oo Soomaaliyeed oo Great Somali dhulkii la dhihi jiray ka kala tirsan in qaybo ka midihii ay xornimo qaateen ama 2 gobol oo ka mid ah. marka waxaad ka dheehan kartaa hanka ay lahaayeen inay ahayd 5tii gobol ee Soomaaliyeed in la isu keeno. waxaa ku yaraa 2dii gobol ee isu timid. dhul badan ay haysteen. marka loo fiiriyo maanta hanka jiilka maanta ay leeyihiin, marka loo fiiriyo ayagu dhul badan ay haysteen oo 2 gobol oo waaweyn oo waqooyi iyo koonfur midnimadoodii ayay haysteen, haddana way ku yareen. marka aan leeyahay marka hankaadu uu weyn yahay waxa aad haysatid ayaa kugu yaraanaya, laakiin marka hankaadu uu soo yaraado mar walba waxa kula badnaanaya waxa aad haysatid. tusaale waxa kuugu filan 91dii markii colaadihii ay dhaceen, burburkii uu dhacay, 2dii gobol ee jamhuuriyaddu ay u dhisnayd gobolladii ayaa go'aansaday maamul loo kala sameeyo. gobolladii koonfureed ayaa maanta haddana intaasoo maamul oo kala duwan ayaa haddana la sii kala sameynaya si xal loo raadiyo. muhiimadda waxay tahay marka waxaa maqan han weyn oo markasta maaragtay dadkii ay wadaagaan oo ah waxa ay haystaan inuu la yaraado, waxa ay haystaan inay maaragtay ay yiraahdaan intaan waan haynaahay maxaan ku dari karnaa. waxaan ku talinaynaa oo aan rabnaa inaan ku dhiirigelino ummadda Soomaaliyeed inta aan ku fakeri lahayn markii khilaafaad uu yimaado gudaheena ah, inta aan ku fakeri lahayn aan qaybta aan iskhilaafsanahay hal la jaro. waxa ka wanaagsan waxa aan isku haysanno halkoodu waa fudud yahay. midnimadeena gobolada naga maqan kuwa wada jooga sideen inta u midayno midnimadaas dunida saameyn ugu yeelana. runtii markii 2dii gobol ee ugu horeysay ee Soomaaliyeed ay midoobeen, dunida waxay ku yeesheen saameyn ballaaran oo libaxyadii Afrika loo bixiyay. saameyn wanaagsan ay dunida inteeda kale iyo Afrikaba ay ku yeesheen. maanta waxaan rajaynaynaa hankii oo kale haddii la yimaado waxa la heli doonaa in dheergaradka Soomaaliyeed inay hankaas ka qayb qaataan. laakiin mar walba oo hankeenu hooseeyo, mar walba oo in wax la kala jarjaro lagu fikiro, hoggaanka iyo systemka cidda wadaysaa waa cidda dadka ugu hankaya. cidda dadka ugu hanka yarina waxay la kufi doontaa waxa ugu yare ay hayaan.
markaasa waxay go'aami doonaan way nagu badantahay hala sii kala jar way nagu badantahay hala sii kala jar sababtoo ah dadka ugu hanka yaraaya waxaan ka shaqaynaya laakiin marka wax han weyn laga fikirayo dadka weyn dheer garadsan ayaa ku qancaya ayaga ayaa waxaas wax ka badan ku dari doona haddii la yiraahdo waxaan ku dhiirigelinaynaa dhammaan bulshada Soomaaliyeed in loo soo laabto hankii weynaa in laga fikiro gobolada xorta ah inay midnimadooda iyo adkeeyaan horu socodkooda waxa naga dhiman waa nabadde waxaan rajaynaynaa dhammaanteen inaan u midowno u wada istaagno kana mid noqono horumarinta nabadda Soomaaliyeed haddii la yiraahdo